madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay aas qaran oo xabaalaha baqiica duleedka waqooyi ee caasimadda Somaliland ee Hargeysa loogu sameeyey marxuun abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo maalintii shalay toolahayd geeriyooday. aaskan qaran ee loo sameeyey marxuunka ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland mudane Salebaan Maxamuud Aadan, xubno ka mid ah golaha wasiirada, xildhibaano wufuud ka kala socotay dalka Jabuuti iyo dowlad deegaanka Soomaalida, siyaasiyiin, abwaano, fanaaniin, qoraayo, ganacsato, madax dhaqameed iyo boqolaal ka mid ah shacabka iyo madax isugu jira howldoorka bulshada, kuwaasi oo si weyn uga murugeysna geeridani ku timi abwaanka. ugu horreynba qaar ka mid abwaanintii ay isku xirfadda ahaayeen marxuunka waqtina soo wada qaateen ay ka mid yihiin abwaan Siciid Saale Axmed, abwaan Maxamed Aadan Dacar, abwaan Xasan Xaaji Cabdilaahi Xasan Gani, xubno wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed, horumarinta biyaha mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan, caafimaadka mudane Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi, diinta iyo waqaafta Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albaani, macdanta iyo tamarta mudane Cabdilaahi Faarax Cabdi oo kelmado kooban ka jeediyay aaskan qaran ee loo sameeyey marxuunka ayaa si qoto dheer u sharaxay kaalintuu marxuunku kaga jiray guud ahaanba bulshada Soomaalida, sidii qiimaha iyo farshaxanimada lahayd ee ugu hoga tusaaleyn jiray iyo sidii uu ahaa muunad astaan u ah wanaagga iyo difaaca xaqa. xubno ku hadlayay magaca wufuudi aaskan qaran ka soo qayb gashay ee ka timid dalka Jabuuti iyo ismaamulka Soomaalida oo halkaasi ka hadlay ayaa ka tacsiideeyay geeridii abwaanka dhammaanba eheladii iyo ummadii afka Soomaaliga ku hadashaba, waxaanay marxuunka eebba uga baryeen inuu jannooyinkiisa ka waraabiyo. gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland mudane Salebaan Maxamuud Aadan ayaa isaguna tacsi u diray ehelka asxaabta qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee uu ka baxay marxuun abwaan Hadraawi, wuxuuna marxuunka ku safeeyey halyey aan beddelkiisa laga heli karin oo bulshadiisa wax badan ku soo kordhiyey. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo halkaasi ka hadlay aaskan qaran ee loo sameeyey marxuun abwaan Hadraawi ayaa ugu horreynba tacsi tiiraanyala u diray ehelada, asxaabta, qaraabada iyo qaranka Somaliland uu marxuunku ka baxay, waxaana uu ku dheeraaday shakhsiyaddii iyo marxuunkii iyo dadaaladii taariikhiga ahaa ee uu geliyay daanta guud ee bulshada iyo sidii wanaagga tusaalaha ugu ahaa. madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu marxuunku ahaa qaamuusan qof kasta noloshiisa ka maqnaan karin oo la adeegsado kaalmaha kala duwan ee nolosha. Hadraawi qof kastoo af Soomaali ku hadlaaba waxaan isleeyahay naftiisa ayaa uu kala hadlayay. qof kaste, qoys kaste ka mid buu ahaa, labada walaalaha ah, waalidka iyo labada isqaba, mid waliba murtida Hadraawi dhinaciisa ayaa uu ka isticmaalaya, ayaa uu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi.